Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Conversation wada sheekaysi. What is waa maxay the difference sharciga between u dhaxeeya truth runta and liar iyo beenta, and which is better iyo keena fiican? Truth runta is good ayaa fiican, and it is like surgery waana sida qalinkii oo kale. It hurts the people dadku way dhaawacdaa a lot in badan, balse it heals way bogsiisaa. Liar beentane is bad way ay xun tahay, and it is like pain killer waana sida xanuun baabi'iye oo kale. It gives waxay siisaa instant relief, caafimaad is dawjoog ah, balse it has side effect forever, weligeed saameyn ayay dhinac ka leedahay. I have got waxaan helay a very big surprise, layaab aad iyo aad u weyn from you adigan kaa helay these days maalmahani. You are very smart, aadaad ugu soo ifbuxaysaa at speaking ku hadalka. Therefore si kastee aataba what came over to you maxaa kugu soo kordhay? I put waxaan dhigay a heavy embargo unaqabateen culus on my studying waxbarashadayda, which I came out taasoo aan banaanka la imaaday these days maalmahani on the stage, weliba masrax korkiisa aan la imaaday. And the circumstance iyo duruuftana compelled me waxay igu khasabtay to raise up inaan soo ifbaxo. Wow, what beautiful talk. Muxuu yahay hadal qurux badan, good for the ears ay dhagax u fiican yihiin to hear inay maqlaan. Okay, hagaag, balse why do you waste maxaad ugu lumisaa your entire moments waqtiyada badankooda with ignorance persons shakhsiyaasha jaahiliinta ah? Because maxaa yeelay I need them, waxaan ugu baahanahay ayaga feel jealousy of me inay aniga igama seeraan, and see ayna arkaan my rank darajada of my progress ee horumarkayga, and let them take ee ayagan soo qaadaan my learning process habkayga waxbarasho.